habeen wanaagsan saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaaliya qodobadan caawa idin hayana waxa kamida halkii ayuu ku dambeeyay dagaalkii ka socday caalamiskaad ee lagu jiray kooxda argagixisada ee Daesh iyo sidoo kale ololihii doorashada Soomaaliya oo si dardar leh uga bilaabmaday magaalada Muqdisho waxaan eegi doonaa sida ay isku bahaysteen ama xulufada u kala sameysteen musharaxiinta u tartamaya xilka Soomaaliya sidoo kale madaxweyne Deni oo ku taagan qorshihii uu ku guul daraystay ama uu ku waayay kursiga u sareeya dalka 2022 ee laga guuleystay muxuu yahay qorshahaas waa eegi doonaa iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo ku guuleystay isaguna inuu kala dilo shacabka SSC Khaatumo iyo sidoo kale Puntland qodobadaas oo dhan daawade intaanan guda galin wax ka codsanaya inay YouTube ku soo birto oo subscribe dhahdo muuqaalka laga saarto gambareelkana furto si ay ku soo gaaraan warbixinada maalinlaha halka ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo halkii ayuu ku dameeyay dagaalkii ka socday Bura Caalamiskaad oo lagu jiray kooxaha argagixisada ee Daesh muddooyinkii u dameeyay ciidamada difaaca Puntland ayaa ku howlanaa inay baneystaan wadooyinkii ay u mari lahaayeen saldhigyada ay kooxda Daesh kaga sugan yihiin Bura Caalamiskaad halkaas oo ciidamadu ka baneysanayaan ama ay ku baneysanayaan aan dhahe wadooyin ay u maraanin gaadiidka maadaama kooxda argagixisada ee Daesh ay diyaarsatay qoryo waaweyn oo ku rakiban buuraha caalamiskaad ay saldhigyadu ay ku leeyihiin waxayna ciidamada difaaca Puntland hadda ku howleeyihiin inay baneystaan wadooyin ay u maraanin hubka noocyada kala duwan oo u saarsan gaadiidka waxaana la filayaa in maalmaha soo socda la dhameeyo wadooyinka lagu talagalay inay baabuurta u maraan ciidamada difaaca Puntland oo muddooyinkii u dameeyay lagu howlanaa qodistooda sidoo kalena Puntland ayaa la timid ku dhawaad 4 diyaaradood oo laba ay yihiin kuwa ciidamada u geynaya saadka sidoo kalena dhaawacyada ka soo qaadaya hubka iyo sidoo kale rasaastana ciidamada difaaca Puntland u qaadaya oo meelaha aysan gaadiid ku gaari karin u geynaya laba kalena waa laba diyaaradood oo si toos uga qayb qaadan kara dagaalka oo ah nooca loogu talagalay dagaalka kuwaas oo ay Puntland iyadu gacanta ku haysato awal waxa Puntland ka caawinayay duqeymaha ama aan dhahe dagaalka dhanka cirka ah dawladaha Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Mareykanka hadda waxa moodaa in Puntland ay ka maarantay in laga caawiyo dhanka cirka oo iyadu ay soo iibsatay laba diyaaradood cid kastaba ha ka caawisee dhanka kale magaalada Muqdisho waxa si toos uga bilaabmaday doorashada aan dhahe ololihii doorashada 2026 oo madaxweyne Xasan Sheekh waxa hadda muddo xileedkiisa ka dhiman muddo gaaraysa 1 sano waxaana magaalada Muqdisho hadda ku soo qulqulaya musharaxiin ku loolamaysa ama u tartamaysa kursiga u sareeya dalka waxaana maanta dalka soo gaaray ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cabdi Faarax Shahdoon oo isagu u tartamaya xilka u sareeya madaxweynaha ra'iisul wasaare Xamse ra'iisul wasaare Khayre iyo sidoo kale Umar Cabdirashiid ayaa iyaguna dhawaan soo gaaray waxaana la filayaa in maalinta biri ah mucaaradku halkaasi shir uga furmo inkastoo madaxweynihii hore ee dalka maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka maqan yahay shirkaasi iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Deni oo labadooduba kamid ah siyaasiyiinta ama musharaxiinta aan dhahe ugu cadcad doorashada 2026 loo madlan yahay inay qabsoonto madaxweyne Farmaajo ayaa isagu iska diiday inuu gabi ahaanba ka soo qayb galo shirkaas waxa uuna door biday in uu si gaar ah u ololeeyo isagu dhanka kale musharaxiinta isku aruursanaysa magaalada Muqdisho ayaa hub iyo sidoo kale ciidamo aruursanaya waxa ayna rabaan in hadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan dhahe hadii uu isku dhajiyo ama uu isku dayo inuu muddo xileedkiisa wax ku darsado ay ku qaadaan dagaal ama waxay muujinayaan inay cudud ciidan haystaan hadii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isku dayo in uu muddo xileedkiisa wax dhaafsiisan ku darsado dhanka kale madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa iyagu hadda ku sugan dalka Imaaraadka Carabta sida ay wararku sheegayaan waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay soo gaaraan magaalada Nairobi madaxweyne Deni ayaa isagu musharaxa
musharaxiinta ugu cadcad aan dhehe madaxweynaha 2016 balse waxaa lagu eedeynayaa madaxweyne deni inuusan wax xulfo ah haysan oo ka caawisa ololihiisa iyo sidoo kale musharaxiinta uusan la samayn xiriir sanadkii hore ayaa madaxweyne deni lagu eedeeyey inuusan hal musharax xiriir la samayn waxaana wararku sheegayaan in haddii uu la samayn lahaa xiriir musharaxiinta kale uu codad ka heli lahaa wareegii labaad ayuu soo gaaray wax codad intuu haystay oo hoolka la soo galayna waa uu waayey wax dhaafsiisan haddana waxaa la sheegayaa in uu isku dayayo inuu keligiis duulo uusan wax musharaxiina uusan la samayn xiriir dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay isagu inuu kala dilo shacabka iyo sidoo kale dawladaha SSC Khaatuma iyo Puntland maalmihii la soo dhaafay SSC Khaatuma iyo Puntland ayaa fariimo nacayb xambaarsan isku marinayay baraha bulshada madaxweyne ku-xigeenka SSC Khaatuma madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta Caydiid ayaa iyagu isku marinayay baraha bulshada hadallo nacayb ah kuwaas oo ay ka muuqdeen nacayb aad u tiro badan dhanka kale SSC Khaatuma ayaa moodaa in hadda ay madaxweyne Xasan Sheekh amaradiisa ay si toos ah u qaadatay weerar qaawanna ku soo qaaday deegaano ka tirsan maamulka Puntland degmada Shaxda oo ka tirsan gobolka Karkaar ayaa dhawaan waxa soo weeraray ciidamo ka amar qaata maamulka SSC Khaatuma kuwaas oo rabay in ay maamulka SSC Khaatuma ku daraanin degmada Shaxda oo ah degmada toddobaad oo ka tirsan gobolka Karkaar waxaase ka biyadiiday ciidamada gobolka Karkaar iyo sidoo kale booliiska Puntland ayaa ku tilmaamay inay yihiin wixii degmada soo weeraray dad maleeshiyaad ah oo iyagu aan booliska Puntland ayaana ku tilmaamay dadkaas inay ahaayeen maleeshiyaad halka ay ahaayeen saraakiil ciidan oo ka tirsan maamulka SSC Khaatuma oo rabay inay halkaasi maamul taabacsan SSC Khaatuma ay ka hirgeliyaan balse waa laga diiday inkastoo dadka deegaanka qaar kamid ay la socdeen haddana dadka deegaanka iyo sidoo kale maamulka gobolka Karkaar oo halkaas gaaray ayaa iyagu ciidamadii halkaas soo gaaray iyo dadkii kale la socday ka eriyay daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena caawa halkan haddaan la soo gaartay mar kale wax ka codsanaya in YouTube-ka ku soo birto subscribe dhahdo muuqaalka la iga saarto gambalaalkana furto waa mahadsantahay